السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخيارتا سود وادا waxaa noo socday kooriskeeni la magacbacay CCNA Cisco Certified Network Associate hadduu alla idmo waxaanu soo dhiganay chapterkeeda weli ku jirnaa arrimo badan oo la xidhiidha ethernetka iyo hadday noqoto carrier sense multiple access with collision detection carrier sense multiple access with collision avoidance frame check sequence frame format arrimo noocaasaan ka soo waran haddaba chapterka markaan gudihiisa marayno waxaan mar walba niyadda ku haynayno waxaan ka warramaynaa waa layer 2 marka la joogo SI modelka layer ka koobnaa layer 2 baan joognaa haddaba marka layer 2 joogno waxaa laazim inaad ogsoonaano dhowr qodob borotokoolada laga helo layer 2ga hadduu alla idmo tiknoolajiyada laga helo qalabada ka shaqeeya cinwaanada laga helo wax wala oo layer 2ga la xidhiidho waa la ogsoon tahay videoga soo socdana waxaan ku arki doonaa videoga soo socda aan chapterka soo socda ayaa waxaan ku arki doonaa tiknoolajiyada la xidhiidha layer 3ga meel socota sababtuna waxa weeyaan markaan dhiganayno course kala qasiisayna Cisco Network Associate waxa routing and switch man barana marka routingkuna waxa laga helaa layer 3gu ka shaqeeya halka switchkuna uu ka shaqeeya layer 2 marka waa arrimo badan oo layer 2ga layer 3ga la yiraahdo barano qofka software engineer kuna badanaa waxa uu bartaa layer 7 ayuu bartaa oo application layer ka meel socota adoo waqtigeedan ka iska taagan waxaan rabaa inaan ka gaarsiino waxyaalo badan oo la xidhiidha maanta aan eegi doono switch qalabka loo yaqaan switch maxaa tahay horta switchka af Soomaali waxa lagu oranayaa bedeli af Carabina wuxuu noqonayaa mubadil buu noqonayaa haddaba qalabkan loo yaqaan switchka waa qalab muuqaal ahaan saa kaaga muuqda mar wuxuu ku yimaado isagoo afar god ah mar isagoo afar lixdan godad badan buu ku kala yimaadaa haddaba qalabkan waa qalabka laf dhabarto shay walba wuxuu leeyahay laf dhabar oo marka dunida la joogo waxa uu laf dhabar ah diin waxa la yiraahdo oo diin hadii la waayo diinteena islaamka ee dunidana faa'iido ma yeelanayso marka shabakada la joogana waxba uu laf dhabar ah qalabka marka shabakada local area network ka tahay qalabka laga maarmaanka tahay in aanay marna aan laga waayin waxa waa qalabka loo yaqaan switch hadda aragtid shabakad bilaa switch ogsoono waxa weeyaan waa naf bilaa ruuxa waa naf bilaa ruuxa qalaba kale bedeli kara way jiraan laakiin sida uu shaqeeyo iyo hanaanka uu maro iyo tiknoolajiyada uu adeegsado iyo sida uu shaqeeyo iyo sida uu godad badan yahay iyo sida magaranaysa loogu tiirsan yahay qalab kale loogu tiirsan yahay ma jiro marka waxa soo oran doonta hadii switch wax leeyahay waa backbone of LAN shabakadeena local area network waa laf dhabarteeda sidoo kale qalabkan maadaama uu local area network ka shaqeeyo local area networkna waxa uu inoo saamaxayna sameeyo tiknoolajiyada loo jiray ethernetkuna technology layer keebo layer 2 taasoo ku qasbisay switchkuna noqdaan layer 2 mara ku soo celiyo waxaan ku shabakadeena local area network waxa uu laf dhabar ah in switch la helo shabakadeena local area network inay sameysmantana waxa iyadana u sababahay ama in la adeegsado tiknoolajiyada loo jiray ethernetka layer keebo layer 2 waxaana inta san ku soo koobina waa eedaanka way gaadhay inta aan videoga yar qabanno assalaamu calaykum السلام عليكم soo noqon mar labaad saaxiib waqtigii salaadii gaadhay sida darteed in waxa magaranaysa la sharaxo salaada ay boqolkiiba ka mubsan ogsoonoona haddaan intaan yar cashirkeen joojino yar iswaana yaraan galno haddii aragtina alla cilmiga ku barakeeyo fadlan ku dadaal cibaadada alle mar wala cibaadada alle ku dadaasho mar wala waxaad baranaysaa barakana yeesho wadhowna uu garanaysa alla arsaaq wanaagsan u kaasi marka salaadii way ahayd sidoo soo noqonay laakiin videoga waan isku xidhaynaa insha Allah waa isku hal casharo kaliya waxa ay noo mareysay inagoo ka waranay switchku inuu yahay waan sheegnay qalab ka shaqeeya qalab layer 2 ogsoono qaacdo meel ku qoran layer walo layeradii aan ka sheegnay todobada ahaa layer walba qalab ka shaqeeya tusaale ninka marka la joogo layer 2 oo kale qalabkan maanta la yiraahdo switchka ku muuqda halkan ya qalabka kale loo yaqaano bridge-ka iyo qalabada noocaas ayaa ka shaqeeya layer 3 oo kale router-ka ka shaqeeya layer 4 oo kale firewall-ka ka shaqeeya marka layer walba wuxuu ka shaqeeyaa maxay layer gooniya qalab walba layer gooni ka shaqeeya haddaba maadaama uu switch-ku layer-ka labaad uu ka shaqeeyo qodobka meel qoran maadaama uu switch-ku ka shaqeeyo layer-ka labaad
mac addresskana laayarka laga heli jiray laayar 2 sidaa darteed waxaa lagu leeyahay marka leedahay laayar 1 switchkan waa laayar 2 macnaheedu waxa ay tahay mac addressku fahma ilaan ciwaanada labaha mac address iyo ip address mac addresskan fideoga hore kusoo qaadana soo dhigdhignay aan hore uga soo naqshadanteynay ayuu fahma uu fahma maxaan ka wada waxaan ka wadnaa tusaale marka maanta waxaa tahay qalab walbaaba wax u fahma si kale aan dhigo nolosheena caadiga maanta marka ninka askariga ah waxa uu yaqaana waxa weeye ninka askariga waxa uu yaqaana waa hebel xid iyo hebel soo day shaqadiisu waa inta noqotay soo maaha miyuu ka nin askariyo maanta dalkeena gudaheedu kaaga warramayo miyuu jira router baa dhaqaaqay may macnaheedu waxay tahay wuxuu dadku yuu la dhaqmaa waxa uu la dhaqmaa waa tuug sidaa darteed macnaheedu waxa uu fahmay shaqadii tuugta oo soo da iyo kan macnaheedu tahay switch maadaama laayar 2 yahay waxa ay fahmaya waa mac addresska oo macnaheedu tamada hadii computer wanaalkan halka waxa yaala qalabkeena switchka kan waa switchkeena waa fideoga laftigeeda ku arki doona halkanna waxa yaala qalab computer 1 kanna waa computer 2 waxa leenahay computer 1 sidoo xoog ugu diro computer 2 waa inuu switchkan u yaqaana soo diraha ciwaankiisa iyo loo dira ciwaankiisa labada marka uu yaqaan ayuu switchku shaqada u qabanay haddii aanu garin laakiin loo dira ciwaankiisa waxa uu sameyn doona xogta inuu kansalo oo yiraahdo computer 1 computerka u diray mac addresskiisa ma aqaano table-kayga iyo aqoonsigaygana kuma jirto sidaa darteed xogta in loo dira garan maayo sidaa darteed xogtaada waan kansalayaa waan xadfaya marka saama igula fahamtay haddaad iskula fahamtay intaan hore sii socon maadaama tacriifka yar haddii lagu weydiiyo English ahaan waa inaad intaan iska xifdida af Soomaali ahaan waxa leedahay qalabkan loo yaqaan switchku waa qalab ka mid ah qalabooyinka network kaasoo isku xidha kombiyuutarada iyo printerska iyo wireless access point-ga oo loo yaqaan web ayuu isku xidha intuu ku xidha internet network shabakadeena ku xidha to each other si isku xidha computer maanta dadina computer kale ku xidhi waa inahay waa qalabkan u baahan switch ayaa laazim sidoo kale switchku wuxuu noo qabtaa shaqooyin badan oo ay ka mid tahay shabakadeeni oo uu sameeyo topology oo mar walba maqashay shabakada topology-geedu waa nooca mar waa bas mar waa star mar waa ringi mar walba saameyn wax ku leh switchkaaga kala dhigayo marka switchkaaga tusaale haddii maanta switchkeena qalabkeena ka hadii halkan computer 1 la dhigo halkan la dhigo computer 2 halkan la dhigo computer 3 oo computer 1 switch godka ka xidhmo computerka switch godka ka xidhmo ka kalena godka ka xidhmo waxa leenahay waa start topology waayo switchka saddexdiba u dhaxeeya marka switchku waa qaabeeyaa shabakadeena mar walba meesha uu ka yaalay saameyn ku leh sidoo kale wuxuu ogolaadaa haddaan sii wadno aan waxaan iska baabino sidoo kale wuxuu ogolaadaa shabakadeena wuxuu ogolaadaa them to talk inay wada sheekaystaan sheekada ka dhaxaysa waa maxay waa inay exchanging data packets inay data isweydaarsadaan xogteena inay isweydaarsadaan qalabka u saaray waa switch haddaan ku sii socono switchku saddex shaqo oo asaasi u qabtaa switchku muxuu qabtaa saddex shaqo oo asaasi u qabtaa shaqada koowaad waa waxa la leeyahay isbaris buu qabtaa isbaris waa maxay waxa weeye tusaale markaan ku arkaynay haddii switchkeena kan oo kale u yaalo oo halkan oo kale computer yaalo halkan kale computer kale u yaalo oo labadan computer bay ku xidhan yihiin switch shaqada koowaad oo qani waxa weeye in labadan computer isbaro oo ila computer 1 waa maxay ciwaankiisu waa nooca tusaale oo ila mac addresskiisu waa kan kale waa b tusaale kale ila socda deetana table la yiraahdo mac table oo maskaxdiisa uu ku kaydiyo ram wuxuu leeyahay ram oo qalabka switch qalab kala moodini waa qalab garanaysa ram leh oo ramka asal yaqaanay garanaysa random access memory kaasoo table ka ku kaydinaya oo macnaheedu tahay waxa uu ku kaydinayaa god baan arki doonaa laba shay isku kale wuxuu leeyahay computer 1 oo kan ah iyo computer 2 oo kan ah computer 1 mac addresskiisu waa tusaale dad line buu qoro wuxuu leeyahay godkiga wixii waa godka loo yaqaano facet 0/0 tusaale wuxuu godkiga wixii waa facet 0/0 kana computerkan way computer b godkiga wixii kaga xidhan isagana mac addresskiisu waa b tusaale wixii kaga xidhan facet 0/0 marka wuxuu baranayaa computeradiina uu isbarayaa table uu sameysanayo qodobka labaad waa maxay forward and filter oo macnaheedu tahay inuu xogteenu noo kala diro madowna uu kala shaandeeyo oo macnaheedu madhow tahay forward macnaheedu garanay computer 1 awood iyo computer 2 xogta u diraysa inoo saamaxay sidoo kale computer 2 computer 1 xogta u diraysa inoo saamaxay filter waxa la yiraahdaa waa maxay waxa waa kala shaandeey oo macnaheedu madhow aan arki doonaa shabakadeena markuu root switchkeenu kanoo kale u yahay
hore u fiirso qodobka filter macallin hadde markuu switchino kanoo kale yahay 20 computer ku xiran yihiin marmar kale waxaad u baahnaanaysaa network administration aad tahay marmar kale waxaad u baahnaanaysaa inaad computer one markaa kanoo kale yaallo inaad u mamnuucdid inuu computer hebel ama godkaasoo kale wax xogta ay magaranaysaa uu ka diro kale markaa filter waa kala shaandhay oo security ahaan oo kale sidoo kale shaqada oo dhan qabta waxa weeye elimination loop si kale haddii loo dhigo waa loop avoidance elimination loop maxaa laga wadaa loop avoidance oo macnaheedu tahay in qalabkeenan loo yaqaano switch shabakadeena wuxuu diiday waxa loo yaqaano avoidance loop in shabakadeena ay xogteena ku dhex wareegto maxaan ka wadnaa tusaale waxa lagu fahmaa waxaan ka wadnaa markuu switchkeenu kanoo kale yaalo uu computer ku xiran yahay one kanoo yahay computer two kanoo yahay computer three ayaa computer one MAC addresskiisa iyo port number godku kaga xiran yahay waa la hayaa waxa la leeyahay computer one MAC addresskiisa iyo port numberku kaga xiran yahay computer two MAC addresskiisa iyo godku kaga xiran yahay computer three MAC addresskiisa godku kaga xiran yahay deedna waxaad ka soo qaadaa computer one baa wuxuu diray fariin buu rabaa ama fariin buu rabaa inuu diro computer aan meeshiiba ooli oo aan jirinba marka switchka fariinta ay timaado fariimku yimaado switchku wuxuu eegayaa soo dira ciwaankiisa xilay waan garanaya loo dira ciwaankiisina maadaama aanu tablekiisa ku jirin iyo qaamuuskiisa uu ka waaya taas marxuu sameynaya inuu dhammaan labadan computer ee soo haray ayuu fariin soo diray uu leeyahay war ninka la yiraahdo computer one oo MAC addresskiisa nooca yahay ayaa MAC address noocaasa raba inuu diray bal meydika bal iska soo sheeg waan yaabane dadna computerada kale waxay ugu soo jawaabayaan way ka aamusaya waxay leeyihiin anagu ma maybe oo adeer MAC addresskayga hore u haysaa maxaa laga wareerinaysaa computer marka switchku wuxuu fahmayaan computer one switch MAC addresska loo diraya inuu khaldan yahay dadna xogta ku sameynaya kaas joog ma naqaan anagu wuxuu marka uu hadlayaa saatan wuxuu qonayaa computer one MAC address baa rabtay inaad u dirtid computeradii kale soo weydiiyey way soo jawaab waay waxaan u fahmaynaa MAC addresskaygu lahayn marka computer one waad khaldantay MAC addresska iska soo saar haddii kale naga dabuuqa saas uu hadlaya marka loop shabakada inay ku dhex wareegto oo ciwaan aan la gelin fariin aan loo diraha la gelin shabakada inay ku dhex wareegto isaga joojinayo wuxuu leeyahay fariintu garan waayo loo dirihiisa waa uu kasare wuxuu leeyahay magaranaysaa wax boos looga haya ama mashquulkiisa inaga kala ilaahay saddexda shaqo u qabta oo ahayd in shabakadeenu isbaro inuu fariintii u kala diro inuu wixii afa loop shabakadeenu ku keeni karaya inay xogta ku dhex wareegto waa uu ka ilaaliyaa waxaan imanaa qalabkeena loo yaqaan switchka oo shirkado badan ay soo saaraan Cisco iyo Huawei shirkado nooca iyo Juniper shirkado badan baa soo saara waxa uu leeyahay qalabkeena switchka noocyo kala duwan bile category oo qalabkeena switchka hal nooc oo kaliya category uu leeyahay waxa jira switch lagu adeegsado waxa jira switch lagu adeegsado shabakooyinkeena campuska campus maxaan ka wadnaa maxas markaan network aan tirino anaga waxa jirta shabakad loo yaqaan BAN oo personal area network shabakad loo yaqaan LAN oo hay local area network waxa jirta shabakad loo yaqaan CAN oo hay campus area network waxa jirta shabakad loo yaqaan WAN oo loo yaqaan wide area network waxa jirta shabakad loo yaqaan MAN metropolitan area network waxa jira switch loo only ka shaqeyn karayo loogu talagalay campus LANiska campuska waxa jira switch loogu talagalay data centerada sida ay adeegsan karayaan shirkadaha data centerada sida Telesom iyo Google iyo xogtan oo kale waxa jira switch ay adeegsadaan qolooyinka cloud-ka sida hadday noqoto Microsoft cloud-iskeeda iyo OneDrive-ka iyo shirkadaha cloud-ka magaranaysaa inoo qaabilsan switch ay adeegsanayaan loogu talagalay waxa jira switch loogu talagalay qolooyinka si adeegyadana siiya sida kuwa internet-keena siiyo soo gashada iyo shirkadaha kale la halmaale caalamka ka jira waxa jira switch loogu talagalay shirkooyinka virtual networking ka dhisa virtual network waa maxay waxa la virtualization ayaa jira virtualization-ka gooni baan ka warrami karaynaa laakiin kelmadda la virtualization haddaan faham guud kaasi si waxa noqonaysaa sida tan waxa weeyaan waxa aan jirin oo aan inaga noo muuqin in haddana meel lagu dhiso maxay tahay maan weli baan faham waxay dhigan tahay hal computer baad haysataa arday baad maxaan ku idhi hal computer baad haysataa ilaahay baa laakiin ku siiyey waxaan wadnay waxa loo yaqaan virtualization waxaan dhahnay virtualization sidaan iskula fahanno inkasta ay tahay course gooniya ama wax gooni loo barto laakiin kelmadda la virtualization haddii aanu sheegno waxaan leenahay tusaale waxaad haystaa hal laptop oo kala haystaa ama hal computer dabeedna waxaa kugu jira operating systemka loo yaqaan Windows ayaa kugu jira Windows 10 ha noqdo ama Windows 7 ha noqdo ama Windows 11 ha noqdo
dabeedna jaamacad ama meel kale waxaad ka dhigataa operating systemka loo yaqaano Linux baad ka dhigataa oo jaamacad oo kala dhigataa waxa lagaga warramo operating systemka loo yaqaano Linux sideen buu yahay waxaad rabtaa operating systemka inaad fahantid oo aad ku shaqaysid oo aad practicalka ku samaysid sidaa darteed waxaad u baahan tahay inaad Windows-kan maadaama computerka ku jirna inta Windows-kan aad ka saartid aad Linux-ka ku shubatid si Linux-ka ku shaqaysid laakiin waxa halka ka soo baxaysa inaad Windows-ka inaad ka maarmi karin haddaba waxa soo baxday waxa la tiknoolajiyad ama waxaad samayn karaysaa laba midkood markaa ku banaan markaa ka maraysid inaad Windows-kaaga operating systemka aad ka saartid oo Linux aad ku shubatid si aad casanaanta jaamacadda ugu practical garaysid ama inaad computer-ka la soo iibsatid oo operating systemka Linux ka dhigtid kaagana Windows-ka kugu jiro taasna waxa la ka dhalanaya inaad lacag badan u baahan tahay qorshayaal badan sidaa darteed waxa soo baxday tiknoolajiyada loo yaqaan virtualization waxa ku saameysaa inaad halkaagii computer aad oo haysta oo operating systemku doonaa kugu jiray inaad operating system kale oo aad u baahan tahay inaad daraasaysid ama wax kale aad ku samaysid inaad computerkaaga isagu Windows kugu jiro liftigiisa aad isticmaali karaysid si virtual ah marka waxaa jira barnaamijyo ku saamaxaya inaad virtual-ka isticmaashid adiga Windows-ka isticmaalaya inaad operating system kale dusha kaga shubtid sida barnaamijyo loo yaqaan VMware-ka iyo Hyper-V barnaamijyo noocaas nama khusuusan laakiin inta ayar cashar ku meena xasuusiyay insha Allah koorsooyinka aan baran doonana waa ay ka mid tahay marka waxaad ku baratay switch-ka qalabka loo yaqaan switch defense-keena inuu noocyo kala duwan leeyahay mid loogu talagalay shabakooyinka waaweyn loogu talagalay shabakooyinka yaryar qaar loogu talagalay service providers qaar loogu talagalay cloud managed-ka aan siis wadnay qalabkeena switch-ka ay waxaad arki doontaa waxa uu leeyahay number buu leeyahay oo waxaad maqli doontaa switch-ka noocan loo yaqaan raqam baa raacdan saan doona marka switch-ka noocaas kala weeg waxaa jira switch loo yaqaano shirkadda Cisco ay soo saarto loo yaqaan 6800 oo loogu talagalay saddex oo fiirso switch-kaaga hadduu yahay raqamka uu leeyahay ama numberka loo yaqaan 600 800 ama 3850 egas iyo 2960 saddexdan nooc iyo qaar kale oo lamid ah la halmaalaba iyo wixii intaa ka sii yaryar hadii doono 1000 ha noqdo iyo wixii intaa ka sii yar waxa badanaa lagu adeegsadaa shirkooyinka ama businessyada waxa adeegsada aadka u yaryar ama shirkooyinka aadka u yaryar kuwa yaryar ilaa kuwa dhexe adeegsada laakiin shabakadaada haddaad maanta switch u baahantahay shabakadaada ay tahay large business mid aad u weyn waxaad adeegsanaysaa switcheska nooca 3 haddaan dhahno 3850 egas 4500 680 noocyadaas jira marka switchada ogsano switchku godadkiisina way ku kala duwan yihiin halka lagu kala adeegsado ku kala duwan yihiin meel lagu kala adeegsado duwan halka bal u fiirso qodobka u fiirso waxaan dhahnaa markaan switchka ka warramaynay ayaa waxaan dhahnay xisbiye switchka saddex nooc baa loo helaa axis iyo distribution iyo core qodobka u fiirso shabakadaada aan ku soo celiyay shabakadaada haday tahay shabakad aad u yar ilaa mid iska dhaxee oo aad u baahan tahay switch axis oo kaliya oo switch axis maxaa ka wadaa mid ay kombiyuutarada kaliya ku soo xidhmaan wayna soo iibsataa switcheska Cisco kale 2160 laakiin shabakadaada haday tahay shabakad aad u weyn oo u baahan tahay switch axis waxaad dadana u baahan tahay switcheska nooc loo yaqaan 3850 laakiin haddii shabakadaadu ay tahay small ilaa qaar mid yar ilaa mid waxa inta isku jirto oo aad u baahan tahay switcheska loo yaqaan distribution ee isku xidhan laba axis switches iyo wixii ka badan waxaad u baahan tahay switcheska Cisco soo saartay 3150 laakiin adigoo aad distribution switch soo baahan tahay oo large business ay waxaad baahan tahay switcheska Cisco soo saartay 4500 egas haddii aad shabakooyinka tahay small to medium ka aad u baahan tahay switcho core oo isku xidhan dhowr distribution wixii ka badan waxaad u baahan tahay switcheska 6800 sidoo kale haddaad core switcheska aad u baahan tahay oo switchada shabakadaaduna tahay large business waxaad u baahan tahay switcheska loo yaqaan 6800 oo labadaaba waa isku mid haddaan hore ugu sii socono shirkadda ugu badan ee soo saartay switchada waxa weeye shirkadda ugu caansan waa shirkadda loo yaqaan Cisco marka waad arko imika wal number ama raqamaanta shirkadda Cisco kalisay marka niyadana qodob meel ku qoro switchkaaga mar midku ka raqam weyn yahay ayuu ka performance badan yahay tusaale imika switchkan magacii numberkiisa waa 3850 egas kan kana waa 6800 waxaan jeedaa 6800 labada switch dil guraad heebaa hawl karnimo badan
waxaa leedahay maadaama kanu ka raqam weyn yahay kan baa ka performance sareeya kan baa ka awood badan kan baa ka magaranaysaa ka isticmaal weyn marka shirkaddan soo saarto waa shirkadda la Cisco aadka u aqoonsan haddaba switcheska ay soo saarto shirkadda loo yaqaano Cisco laba qaybood loo qaybiya loo qaybiya switcho loo yaqaano fixed configuration iyo switcho loo yaqaano modular switches maxay kale waxa weeyaan switcho maanta soo iibsatid waa switcho aanad awood u lahayn in aad configuration ku samaysid macal iska daa magac aanad ka bedeli karin switcheska waxa loo yaqaana aan configuration lagu samayn karin fixed configuration switches baa loo yaqaana fixed configuration switches baa loo yaqaan waa switcho aan awood u lahayn maalinta soo iibsatay ilaa maalinta ugu dambeysay ay ka xumaanayo inaad hal shay aad ka bedeshay dabka geli dabka ka baqtiyo in baad awood leedahay iyo switcho loo yaqaano modular switches oo ah switcho aad awood leedahay inaad configuration ku samaysid waxaad doontaa aad ka bedeshay waxaad doontaa aad ku soo degtay waxaad doontaa aad ka saartay adigu aad magaranaysaa network administration aad maamulkeeda aad haysid haddaba iyadoo halkaa inoo marayso ayaa waxaanu yar ku noqonaynaa qodobkii muhiimka markii aan anagii dhahnay maxay switchkeenu saddex shaqo noo qabtaa switchkeenu wuxuu noo qabtaa saddex shaqo oo ahaa leerin ayaa ugu weysay inuu isbaro kombiyuutarada waxaan dhahnaa hadduu kanu kombiyuutar wan yahay maaka dareeskiisu yahay 12 e switch b inuu yahay 12 b su-aal baan kuweydiin karayaa switchkaagu ma dhici karaysa 12 waa ee noqdo jawaabta waxa weyn waa meed waayo waa uu noqon karaya laakiin waa qeyr macquul oo waayo anagii dhahnay maaka dareeskaagu waa inuu hexadecimal noqdaayo nambaraan iyo xuruuf isku dhex jira markaa waxaad ka aragtaa nambaraan qura halkana nambaraan qura waxaan jeedaa xuruuf qura iyo xuruuf qura marka waxaan lahaysanayn xuruuf iyo nambaraan isku dhex jira tusaale ka soo qaad switchkaaga allaaba ka dhiga 12 ee kan kalena waa 12 b switch 1 iyo waxaan jeedaa computer 1 iyo computer 2 waxa rabeen xog sudaarsana qalabkii switchka ahaa ayaa waxay kaga soo xidhmeen kan wuxuu kaga xidhmay godka loo yaqaan fastnet 0/1 oo ku yaala switchkaaga godkiisa kan kalena fastnet 0/2 haddaba computer 1 isla markoobaadkaaga switchkaaga uu ka yahay qodobka meel switchkaaga markuu halkaas oo kale u yaala aad marka saad u gelisid waqti buu qaadanayaa switchkaagu ku baranayo computerada maxaan ku waqti ilaa 5 second ilaa 10 second kolba ku xulantay switchkaaga hawlkarnimadiisa marka sida loo geliyo switchkaaga wuxuu sameynayaa inuu computerkan maaka dareeskiisa iyo godku kaga xidhan isku barto oo yiraahdo wuxuu sameynayaa table loo yaqaano mac table loo yaqaan mac table oo loo sageeyo maaka darees table ama layer 2 table ama ethernet table ama physical table magacyo noocaas u leeyahay ama switch table magacyo badan baad ku arki doontaa marka laba shay buu isku jalwadkan ba table kan sameeynaya table kan wuxuu leeyahay wuxuu ku taxayaa kan port numberskiisa iyo maaka dareeska marka wuxuu oran doonaa switch 1 ka marka table kan sameysanayo wuxuu leeyahay godkeyga la fastnet 0/1 oo kan ah waxa ku xidhan computer 1 oo maaka dareeskiisu yahay nooca 12 ee oo 12 eega dhagana godkeyga loo yaqaan fastnet 0/2 na kan ba waa ka isagana wuxuu ku xidhay godka ma dhow table kan wuxuu tarayaa faa'iido leey waxa weeyaan wuxuu ka haystaa wajahad gooniya ama wuxuu ka haystaa concept gooniyo ka haysan ama computerada shirkadda ku tusaale computer kala dhakaas kala ka soo xidhay god buu kaga xidhay wuxuu isku baranayaa godku kaga xidhan yahay fastnet 0/3 iyo maaka dareeskiisa deetana uu ku sii daraya saas uu table ku soconaya ilaa dhammaan godadka uu maaka dareeskaagu leeyahay dhammaan laga wada isticmaalo haddaba waxa su'aal haddii computer kale oo halkaa yaala oo maaka dareeskiisu yahay c la soco ayaa imanka ku soo xidhmay jasna uu ku soo xidhay dabeedna waxa dhacday computer 1 ayaa wuxuu sameynayaa wuxuu rabaa inuu xog diro computer c waxaad ka soo qaadaa computer c table-ka kuma jiro oo wali lama diiwaan gelin oo switch table-ka laguma diiwaan gelin dadna computer 1 ba wuxuu rabaa computer-kan wali yaana diiwaan gelin inuu wax u diro dadna fariin buu soo diri rabaa fariintii uu dilo ama filimkii uu switch u gaarsiinaya switch-ka wuxuu eegayaa soo dira ciwaankiisa wuxuu leeyahay soo dir waa gartay laakiin loo dira wali maan garanay waayo dadna fariin buu wuxuu soo diri doonaa computer-ka labaad iyo computer-ka saddexaad ayuu leeyahay war maaka dareeska nooca la waayo dadna waxa dhacaysa in computer 1 uu fariintii hajida switchku inuu computerkiisa yahay uu diro frameki sidoo kale computerka uu diro isagoo leh computer 1 ba wuxuu soo wadiyay ina fariin uu diro fariin aan hayo maaka dareeska c noocaasa yaa
dabeetna computer b iska aamusaya cancel buu leeyahay aniga ma computer c baa soo jawaabay oo odhanaya waan anigu ijeedaaye aniga weeyaan fariintay soo dir wuxuu leeyahay saan fariinta kugu soo diro horta markaa diriiskaaga ma ka baxaa markaasuu diiwaan gelinaya markuu diiwaan geliyo ayuu ka bacdu diraya waxaan rajaynayaa in aad iyo aad wax badan aanu ka sharaxnay fideoguna aad u dheeraaday waxaan rajaynayaa in boqolkiiba boqol ardaygu aad u fahmay waxyaalaha badan aanu sharaxnay inagoo miridiyada wax walba badinay allah ha nii fududeediyo fideogu soo intaan ku kulmi doono assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu